السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قيمة بدن كسر هذا كون سومالي ميديا مركل اللح عسكري أيام مريكا كوجد ما تبرق ده تقال كي كل جيران إيران يجي إسرائيل معلومات أرنتا كسب سنة يندين هنا يصيد اللحظة عسكري أمريكا كا أي وجد إنتان أما لو جد لي قد بدأ السيد وكلانه برنامج كيدن كوين ينوح كم ذا xalay diyaarad nuuca duuliyaha lahayn ee dalka Iran ayaa ku qarxday saldhig ay ciidanka cirka Faransiiska lahaayeen magaalada Erbil waxa lagu waramayaa 6 askari oo ciidamada Faransiiska inay iyaguna halka ku dhaawacmeen qodobka ayaa iyana maqli doontaa faahfaahintiisa dhinaca kale weerarkii xalay lagu qaaday Kentucky gudaha dalka Mareykanka xaruntii ama meeshii Yuhuuda ee synagoga ayaa FBI-da Mareykanka warbixin ay ka soo saareen waxay leeyihiin wuxuu ahaa fal argagixisa iyadoo maqal iyo muuqaal ay idinahaya sababta ay ugu sheegeen waxa uu falkaasi u ahaa ama weerarkaasi u ahaa mid argagixisa qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku hayaa taliyaha dhanka amniga Iran ee hogaamiyihii la dilay Ali Khamenei Ali Larjani ayaa waxa uu jawaab yaab leh oo aad warbaahinta ay u falanqeynaysiiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ka jawaabay Donald Trump oo sheegay inay Mareykanka awood u leeyihiin ama u lahaayeen in ay korontada Iran u ku damiyaan hal saac gudeed Ali Larjani jawaabtu siiyay Trump ayaa waxa ay noqotay mid Mareykanka sida u ruxday qodobada iyo kuwa kale ayaanu barnaamijka aroonimo saaka idinku haynaa soo dhawaada mar kale magacaygu waa Mustafa Ali halkana waa Kow Somali Media Mareykanka mar kale jug weyn ayaa soo gaartay horay isbuuci hore waxa la sheegay in looga dilay 7 askari dagaalka Iran ay la galeen caawa 6 askari kale ayaa lagu waramayaa inay Mareykanka uga dhinteen bariga dhexe tan intii dagaalka ay ku qaadeen iyaga Israa'iil Iran sida ay warbaahinta Mareykanka ay ku caalamka baahinayaan iyo sidoo kale warbaahinta galbeedka waxaan idin la wadaagi doonaa warbixin iyo muuqaal xalay xilli dambe ama saaka aroortii xilligay ku tahayba Sky News uu ka sameeyay 2 diyaaradood oo nuuca militariga dalka Mareykanka gaar ahaan midda shidaalka siisa diyaaradaha dagaalka miigaga iyo diyaaradaha kale midda shidaalka siisa weyn ee Boeing loo yaqaano oo waliba diyaarad aad u weyn oo shidaal badan qaado oo ay saarnayeen 6 kamid ah ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay lagu waramayaa iyada iyo diyaarad kale in ay hawada ku kulmeen lama yaqaan shidaal siinaysa inay si kale ku kulmeen labada diyaaradba Mareykan iskale goobta falkaas uu ka dhacayna waa galbeedka dalka Iraq haddaba waxa lagu waramayaa labada diyaaradood midii weyneyd in la waayay hadda wararkii u dambeeyay soo baxayay waxa ay sheegayaan in diyaaradaasi 6 qof ee saarnayd ee ciidamada Mareykanka 6daba la tirinay inay diyaaradda ku dhex burbureen diyaaradii kale diyaaradda la socotay waa la helay ayaa la leeyahay iyadoo maqal iyo muuqaal ay idinahaya haddii marka 6da geeridooda la xaqiijiyo dhimashadooda waxaa Mareykan sida uga dhimatay 6 askari kale ayaa uga dhimatay muddo 2 isbuuca dagaalka Iran ay ku qaadeen iyaga Israa'iil taas oo mar kale Trump ku noqonayso in ciidamadii Mareykanka ay ku dhimanayaan gudaha bariga dhexe dagaal aysan Senate-ka iyo Congress-ka iyo shacabka Mareykanka ba aysan raali ka ahayn oo aan loo ansixinin iyadoo horay isbuucan Trump loogu eedeynayay dhimashada ciidamada Mareykanka qarashka faraha badan ee ka baxaya dagaalkan oo aan la aqoonin xilliga uu dhamaanayo eedihii ayaa caawa ku sii badanaya dhinaca kale xalay waxay ahayd habeen aad ugu adag ciidamada Mareykanka Imaaraadka sarti ay deganayeen ciidamada Mareykanka ayaa la garaacay Dubai gudaheeda sidoo kale Bahrain saldhigii Mareykanka mar kale waa la garaacay xaaladdu meel adag ay ku maraysaa ilaa Sky News oo ka waramaya diyaaradaha Mareykanka waxa ku dhacay iyo galbeedka Iraq wixii ka dhacay 6da Mareykanka marka kale lagu waramayo mar kale inay uga geeriyoodeen dagaalkan. We're hearing from the US military saying that an aircraft has gone missing over western Iraq. The US military saying it's aware of a loss of a refueling aircraft in friendly airspace. Just a bit more here from US Central Command saying 2 aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq. The second landed safely. Mark Stone, our US correspondent, is in Washington for us. Mark, what more are you hearing?
Well, you pretty much said it there, Jonathan. We've got a little bit more detail that is just coming in from Tampa, which is the headquarters of Central Command, Tampa, Florida. And they are saying at this stage that this was not due to hostile fire or friendly fire. Two aircraft involved. One is a KC-135. That is a large refueling aircraft. It looks to non-experts like a civilian. taasi waxay ahayd warbaahinta Sky News oo ka faalloonaysay diyaaradihii Mareykanka waxa qabsaday in mar kale 6 kale oo askarta ciidamada Mareykanka diyaaradii ay saarnayd majin baa la tagay balaayo kale la tagay iyagu waxa ay leeyihiin sida aad warbixinta ku maqlayseen oo ay soo saareen Pentagonga iyo wasaaradda dagaalka dalka Mareykanka waxa ay tilmaamayaan in aysan ahayn diyaaradaas weerar ama duqeyn ciidan ama xitaa mid saaxiibtinimo ah inay waxba ku gaarin mana cadeynayaan waxa ku dhacay rasmi ahaan diyaaradaasi isku soo duub tirada dhimashada ciidanka Mareykanka haddii inta hadda la shaacinayo lagu daro ama la sheego 6dan lagu kordhiyo waxay noqonaysaa 7 meel ahayd iyo 6 meel ahayd 13 ayaa meesha uga maqan iyadoo inta la xaqiijiyay isbuucan dhimashada ciidamada Mareykanka ay 140 ciidan ama askar oo Mareykanka ay ku geeriyoodeen hadda la soco waa 2 isbuuc in gaaraysa iyadoo dhinaca Israa'iilna ay hadda wajahayso culayskii ugu badnaa dhaawaca dadka Israa'iiliyiinta ayaa lagu waramayaa inuu sii cagacagaynayo 3,000 iyadoo xalay mar kale Israa'iil ay la kulantay drone iyo gantaalo aan kala go' lahayn oo uga imanaya dhinaca Xisbullah iyo Iiraaniyiinta Iiraan ayaa waxay adeegsanaysaa dronada iyo gantaalada harista ah iyadoo Israa'iil markii ugu horeysay ay sheegaysaa waxa ay Iiraan ku dhacaysay inay tahay dambiyo dagaal oo ay adeegsanaysaa gantaalada halista ah oo mamnuuc ah in loo adeegsado goobaha shacabka Israa'iil ayaa mar kale ku eedeynaysa Iiraan in ay beegsanayso shacabka goobaha dadweynaha hadalkan oo dad badan ay u arkaan wax in badan lagu eedeynayay Israa'iil intii ay weeraraysay shacabweynaha reer Falastiin gaar ahaan reer Gaza waxa hadda warbaahinta iyo muuqaalada ay baahinayaan warbaahinta Israa'iil lagu arkaya iyagoo dadka tusaya qoysas Yuhuuda oo ooyaya oo ilmahoodii guryahoodii la burburiyay waa dhacdo cajiiba oo ka jawaabaysa wixii ka dhacay Gaza sida isku shabahayaan qubarada caalamka iyo dadka arrimaha dagaalka ka hadla waxa ay sheegayaan Israa'iil dagaalkan iyo Mareykanka labadaba inay shakil ahaan tahay inay galeen iyagoo xisaabta ay ka qaldantay ma filaynin dagaalka inuu intaan ku gaarayo Iran ilaa inta inay dagaalamayso waxaynu gudbeynaa qodobka xiga barnaamijkeena aroornimo saakay oo subaxnimo jimcaha xalay diyaarad nuuca dagaalka ciidamada Iiraaniyiinta gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxa ay ku qaraxday saldhig ay deganayeen ama ay leeyihiin ciidamada Faransiiska ee ku yaala magaalada Erbil ee dalka Ciraaq waxa lagu waramayaa 6 askari oo kamida ciidamada Faransiiska inay ku dhaawacmeen qaraxa diyaaradda Iiraaniyiinta ee duuliyaha aan lahayn ee ku qaraxday saldhigga ciidamada Faransiiska laakiin muuqaalka ka imanaya goobta ay qaraxaasi u ka dhacay ama diyaaradaasi ay ku qaraxday ee Iiraaniyiinta waxa la arkayay holaca iyo qiiqa ka baxaya in meeshaasi dhibaato weyn gaartay Iiraan dhinaceeda wali wax wara kama soo bixin laakiin waxa arintaa sharxay oo siday wax u dhaceen ka hadlay gudoomiyaha gobolka in ay qaraxa u ka dhacay ciidamada Faransiiska lagu weeraray ama diyaaradaasi ay ku gubatay oo nuuca duuliyaha aan lahayn oo uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi inay ahayd diyaarad dhinaca Iiraan ka timid haddaba Faransiiska waxa uu ka mid yahay dawladaha diiday gabi ahaan in dagaalkan ay ku biiraan oo ay garab istaagaan Mareykanka iyo Israa'iil waxayna cambaarayeen dagaalka oo ay sheegeen inuu ahayn mid wax maslaxada xambaarsan wali dagaalkan dhibaatada uu geystay uu ka weyn yahay dhimashada iyo burburka dhaawaca gobolka iyo dawladaha ku hareeraysan Israa'iil iyo Iiraan sida Imaaraadka iyo Khaliijka guud ahaanba dhibta uu gaarsiiyay waxa ka badan shidaalkii caalamka iyo cirka geeyay caawa mar kale waxa lagu waramayaa shidaalkii inuu cirka sii galay oo sii qaaliyoobayo iyadoo cidda meeshan mar kale ka macaashtay warbaahinta aad uga hadlayso in uu yahay Ruushka oo lacag aad u badan ka sameeynayo waayo shidaalkiisii ayaa suuq fiican helay isagoo India meelo badan shidaalkiisa u suuq geynaya ويا صاحب القيم لو قضبك وقدم بيا برنامجك وحين كسو حيرنا علي الأرجاني ولا تليه دنك أمنية هجاميه إيران إلى دلي علي خميني
علي لرجاني waxa uu jawaab yaab leh oo cajiib u siiyay Donald Trump baa wuxuu la soo fariistay oo uu yiri wuxuu leeyahay waxaan maaragtay aan awoodnaa aan ilaahay raalli ahada in aan biyaha dhanba ka goyno aan raalli ahada korontada dhan aan ka jarno korontada dhan Iran ka jarno saacad gudaheeda ayaan awoodnaa buu yiri Donald Trump laakiin ma sameeynin buu dhahay saas waa ka deynay waayo shacabba meesha ku nool iyo war buu dalay ilaa shacabada aad u naxayso shacab gantaalada duqaymada ay ku dul socdaan 13 cisho 2 isbuuc koronto aad ka jartay iyo maxay uga dhigan tahay ilaa gantaaladii ku dhacay magaalooyinka waaweyn ee Iran ee Tehran ka mid tahay Qum ka mid tahay Shahraz ka mid tahay dhammaan magaalooyinka Iran gantaalada iyo duqaynta Mareykanka Israa'iil ayaa ku socdo markuu intaas yiri Donald Trump Ali Larjani baa si yaab leh ugu jawaabay wuxuu yiri Trump wuxuu sheegay wax fiican buu dhahay haddii saacad gudaheed uu ku jaro korontada Iran oo dhan macnaheedu waxa waa gobolka dhan korontadiisa baxayso nus saac gudaheeda saacad markuu Iran ka jaro saac gudaheedana gobolka dhan koronto la'aan noqonaysa buu dhahay oo meesha waa isla mugdi isla noqonaysa taasna Iran fursad ay u tahay buu dhahay waa fursad lagu ugaarsan karo buu dhahay ciidanka Mareykanka oo mid dhagta lagu soo qaban karo ayagoo dhagta lahaaya la keenaa buu nimanka Iiraaniyiinta waa niman cajiib ah dagaalku wuxuu galay waji la isku awood sheeganay oo aan la isku arxamayn la isku naxariisanayn oo la isku garaacayo hubka ugu dambeeyo Iran waxay hadda adeegsanaysaa duqaymadeeda u adeegsanaysaa gantaalada ugu khatarta badan oo hadda ay warbaahinta Mareykanku baahinayaan oo madaxyada ay tuurayaan ay yihiin kuba halisan waaya saaxiibada qiimilow waxaynu barnaamijka ku soo xireynaa weerarkii Kentucky oo mar dhow war ka soo baxay FBI-da waxay warbaahinta la wadaagtay ninkii weerarka soo qaaday in maaragtay uu yahay nin horay FBI-da baaritaan ay ugu waday waa ninkii weeraray synagogue barnaamijyadeen hore ayaan ku soo qaadanay intii aanan daawanin barnaamijkan kan ka horeeyay ayaan ku soo qaadanay xarun ama goob yuhuud ay wax ku aabudaan ee temple ama synagogue ayaa la weeraray xalay oo ku taala Kentucky Mareykanka marka weerarkaas baaritaan baa lagu waday ugu dambeyn FBI-da hadda waxay leedahay waxaan ogaanay ninkaas inuu yahay nin argagixis ah weerarkaasna waa weerar argagixis ah marka intay sharxayeen in yar kamid ah in la wadaagaya waxay leedahay haweeneydii FBI-da dambe baarisayaasha kamid ahayd ninkan argagixiso ahaa baaritaan hore aan ku wadnay markuu weerarka fulina wuxuu dhahay kulaha Allahu Akbar macnaha Allahu Akbar waxay ka dhigayaan kelmad argagixisada isticmaalaan macnaha kelmadda argagixisada waxa loo isticmaalaa anu ma dhahay ninkaas argagixiso waaye ma ahan iyo wuxuu yahay ma aqaanba muslim iyo gaal wuxuu yahay ma aqaan laakiin macnaha kelmadda argagixisada waxay leedahay Allahu Akbar buu dhahay Allahu Akbar ma kelmad dad lagu laaya qof dad laayo oo bini aadam laayo dad meel yuhuud meel ku dukanay ku cibaadeysanaysa ama iyaga waxay cibaado u yaqaan samaysanayso ama qof kale oo muslim oo dukana ama qof kale oo ganacsi ku jira shacab oo aan dambi gelin dawladiisu waxay rabtaa samaysan laakiin qof shacab oo dambi gelin oo Mareykanka iska joogo in ay u tagto Allahu Akbar aad ku dishid macna ay sameynayso magaca Allahu Akbar dad laguma dilo maba loo isticmaalaba iyada marka magacaas waxay ka dhigaysaa in ma aragtay maadaama uu Allahu Akbar dhahay macna argagixiso waxyaabaha ay factorieska isticmaalayso ay waxay ku daraysaa Allahu Akbar inay qayb ka tahay macna waxa fahmi kartaa meeshan labeling baa la wadaa islaamki ayaa waxa la rabaa in la suurad xumeeyo si loo suurad xumeeyo waxyaabihii islaamka qiimiga iyo weyninka iyo muqaddasaadkii ilaahay jiritaankiisa iyo weyninka ilaahay ayaa waxa laga dhigayaa inay nooc argagixisada isticmaalaan tahay bal ila daawo sida ay u hadlayso was an act of terrorism. I can tell you that we have confirmed reports that prior to him conducting this act of terrorism, he shouted or stated Allah Akbar, and he was formerly a subject of a FBI investigation in material supporting terrorism. waa yahay saaxiibada qiimiga lahow qodobkaasi waa qodobkii ku saabsanaa weerarka Kentucky oo ay ku sifaynaysa haweeneydii FBI-da inay argagixiso tahay waliba sida Allahu Akbar ay ugu dhawaaqay si sax ma la akhbar beelada ana waa ajiib dadkan dad imtixaan waa ana qofkii rab in la soo ruxmayo waxa laga marayaa waxyaabuhu aaminsan yahay ninka shakhsiga inay dhahdo waa isaga dambi lagu haya ama muslim ahaada ama kristaan ahaada ama diin laawa ahaada isaga inay dambiga ku qaadaan ilaan isaga wax weerar waxa fahmi kartaa waxaan waxyaabo la diyaarinayo silsilada la diyaarinayo xaalada la abuuraya kadib dad la rabaa in maarta lagu dhibaateeyo barnaamijkii aroonimo oo aad taa kala socoteen kow Somali Media inta ayaanu qaybtan ku soo xiranaa tan iyo barnaamijka xigo waxaan idinkaga tagay nabadgelyada Ilaahay dushiina haato assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh